wardagdaga mucaaradka iyo beesha caalamka waxay madaxweyne xashi maxamuud ku qasbayaan in uu iscasilo oo uu isaga tago xukunka wadanka iscazil madaxweyne ayaa la leeyahay waliba gorgortan laga magalayo madaxweyne xashi maxamuud halka baa loo galaya mucaaradad mid ay ahayd iyadoo oo af leh ayaa laga hortagayaa waxaas ugu daran in mucaaradadan ay u muuqdaanba beesha caalamku inay hal dhinac la safan yihiin kulan ka dhacay villa Soomaaliya oo xog badan aan laga helin ayaa ku haya oo waliba haddii xogaha qaar ee kulankaas ka soo baxay aa kaaga sheekay adigu laftirkaaga aad yaabi doonto haddaba maxaa ka dhacay villa Soomaaliya madaxweyne xashi maxamuud ma laga yaabaa inuu qaato markaasi go'aan ah in uu iscasilo ama jagada wadanka isaga tago oo muuqda la yiri ninka dabcan nin jagada banaynaya ama xukunka isaga tagaya waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay suurtagalnimada ah in xashi maxamuud uu xilka isaga tago xashi maxamuud waa madaxweynihii hore ee dalka macna ma lahan awood sharci darro ah oo 15 May kadib uu go'aamin karo xiriir diblomaasiyadeed kuna qaadan karo go'aano masiiriya xogayaha madasha bixinta mudane markaasi Kofi General Kofi ayaa sidaas yiri maxamed aadan Kofi ninkii hay'adda sudcaalka hore u soo maamuli jiray waxa la yiri diblomaasiyiin qaabil waxaad ogtihiin in safiirka Djibouti xashi uu waraaqadaha ka gadoomay 16 ilaa 17 bishan ama 17 bishan baan iraahdo uu ka gadoomay sidoo kale wuxuu madaxtooyada dalka markaas kula kulmay xubno ka tirsan midowga Yurub oo madaxweyne xashi maxamuud kulama la qaatay waxa la yiri ama beel caalam la kulan ama safiir qaabil ama wax kala sameey awood maroorsi xukun laguma sii haysan karo 15 May kadibna ma go'aamin kartid xiriir diblomaasiyadeed macnaheedu ma ku sameynaysaa iscazil kana soo bax madaxtooyada ayay leeyihiin mucaaradka waxaan isla eegaynaa safiirka midowga Yurub iyo madaxweyne xashi maxamuud oo kulan gaar ah ku yeeshay villa Soomaaliya maxay ka wada hadleen muxuu daarnaa wada hadalkaas xog iyo macluumaad wali aan la helin ayaan ku hayaa oo aad mowduucana ku daawan doontaa laakiin ha ilaawi saaxib inaad nagu soo beerto waa channelka subscribe soo tiraado saaxibadan u soo share gareyso waa maasantahay mowduucana waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya professor xashi maxamuud siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeday waxay leeyihiin madaxweyne iscazil xukunkaaga waa fashilmay dadkii waa burburiday oo dalkii Soomaaliyeed waa barakiciday oo dadkii waxay ka bixilayeen abaaro shiid iyo duruuf jeebkaaguna way buuxaan adiga iyo carruurtaada u baa Soomaaliya si nabada iyo dhaqaalaba ah ugu nool ayaa la leeyahay dadna xabsiyada ku jiraan oo maxaad u hadasheen u xireen waxa la soo jeeday in xasan sheekh uu iscazilo jagadana ka taga laakiin madaxweynuhu ma yahay mid arrinkaas sameynaya ama la yeelay dhowr talaabood oo diiday aan ku haya madaxweynuhu hadda wuxuu sii wataa qaabilida madaxda sheeye shaqooyinkiisa maalinlaha ahaa magacaabis ama xilka qaadis danjira inuu markaasi ka gudoomo waraaqadaha aqoonsiga oo nin Cornel oo Djibouti ay safiir u soo magacaabatay ayuu madaxtooyada ku qaabilay oo ku gudoomay warqadaha aqoonsiga mucaaradku marka arrinka way ka hadleen waxaana la yiri madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ay ugu yeereen awood sharci darro oo 15 May ku ekeed ayaad ku dhaqmaysaa baa la yiri xasan sheekhna isaga hore u lahaa farmaajo waxba ma dhaam nin naagti ay kala tageen ay carruur u dhalayso waxba ma dhaam isagoo ula jeeda kursigii waqtigiisa uu ku dhamaado ku fadhiya farmaajo isagoo ula jeeda ayuu sidaa la xasan sheekh hadda maanta isaguna markiis waxa leeyahay madaxweyne waxba kama bedelin nin naagti ay kala tageen ay carruur u dhalayso sababtoo adiga shalay lahaa ayay leeyihiin xubnaha mucaaradka Kofi markii wuxuu yiri madaxweynihii hore ee dalka ma lahan awood sharci ah oo 15 May kadib uu ku go'aamin karo xiriir diblomaasiyadeed kuna qaadan karo go'aamo masiiri ah ninkan sidaan dhahaya waa xogayaha madasha bixinta maxamed aadan Kofi ayaa la yiraahdaa waa nin jarana oo hore uga soo tirsanaa madaxda dawladda hay'adda dawladeedna xilal waaweyn ka soo qabtay murashax madaxweyne galmudugna waxa la yiri in mucaaradku sidaan ay ula hadlaan madaxweyne xashi maxamuud waxay ku tahay dhibaato weyn xukunkiisa iyadoo dadka qaarna ay u arkaan in madaxweynuhu markan uu wajahayo xaalad khatarteeda leh waxa la yiri madaxweyne xashi maxamuud waxa uu soo wado iyo wabiga yaaweyn geesta kale madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa war saxaafeed ka soo saartay kulan madaxweyne xashi maxamuud iyo safiirka midowga Yurub Francisca Madero haweeneyda lagu magacaabo ku dhexmaray villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen iskaashiga istiraatiijiyadeed ee soo jireenka u dhaxeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyo horumarka mudnaanta leh isla markaana dalka iyo dowladnimada hore ay ugu socon lahaayeen villa Soomaaliya ayaa warkan shaacisay laakiin wararka qaar waxay leeyihiin haweeneydan aad ay u canaanatay madaxweyne xashi maxamuud waxayna tiri dalka Soomaaliya
وأد مدحوينها كتاعي وإن جلساء دورشو ليس لأقوله إسلام مركا أنا حل الله تماذا ودورشو وسنديكو تاذن هشيس لقوية هاي معارض محافظنا أي وقولهن وأنا ضدك سوماليات بأوقاتا أي هوين إذا أنت رسالة أن حكتو كهلينا كلن كان وحكوسو آذي حل بريلا قرشين إنه حالك كلن دحية سياسيين معارضك سفير هذا دلالك سي 6 بلاس ليرادو markaasi loo yaqaano ama C6 Plus loo yaqaano ee ku saabsan kuwa marxaladaha kala guurka iyo doorka dalalka Soomaaliya oo kala ah ka taageer arrimaha horumarka xilligan oo kale ay hadlaan C6 Plus iyo madaxweyne Xashi Maxamuud ayaa bari xalana ku balansan maantana haweeneydan midowga Yurub wakiilka oo ah Soomaaliya ayay madaxweyne Xashi Maxamuud kulmeen wali midowga Yurub warka ma soo saareen kulanka safiirkooda iyo madaxweyne Xashi Maxamuud warka midowga Yurub wali waa la sugaya حسن الشيخ وحuu yiri iskaashi waxbaan ka hadalnay dawlad wanaag iyo waxaas asagu sheegay oo madaxtooyadu ay soo xariiqday laakiin lama oga warka ka soo yeeri doona midowga Yurub oo ay ka soo saari doona arikan waxa laga yaabaa war ka bedelan midka madaxweynaha in uu ka soo yeero markaasi midowga Yurub waase ka war dhowri doona sida ay wax u dhacaan Soomaaliya xilligan waxay taagan tahay marxalad adag 4 sano heshiiska lagu ahaa ee dastuurkii ku meel gaarka ah ee dalka dadkaba ay heshiiska ku ahaayeen waa uu dhamaaday madaxweyne Xashi Maxamuud dastuur isaga u gaar ayuu ku dhaqmayaa bay leeyihiin dad ka soo horjeeda mucaaradku waxay leeyihiin ma jirto doorasho madaxweynaha uu qorsheeyay oo wuxuu doonayaa in doorashada uu boobo halka safiiradii beesha caalamka doorkooda ay qaadanayaan marxaladda Soomaaliya ay u muuqanayso mid mar kale ceel dheer ku sii dhacayso oo dadka Soomaaliyeed rajabeel iyo qoys markaas ku noqonayso haddaba Xasan Sheekh ma yahay nin xukunka baneynaya ama kursiga isaga tagay hadii uu xukunka baneeyo xukuumad xil gaarsiina ma noqon kara Xamzo maxaa ka dhici kara Soomaaliya halka dadka Soomaaliyeed muxuu yahay aragtida tolmo reeb saaxiib haylaawina jarar ku soo biirto halkan waxaan ku falaqeynaa wararka ugu waaweyn Soomaaliya waxaan uga hadalnaa xaqiiqooyinka jira iyo sidoo kale wararka degdeg ah waa maasantahay saaxiib munaasabadatan halkan loo joogo runtii munaasabad farxad weyn leh aniga iyo tiimkii hore shaqeynayay laba farxadood bay u tahay midi waa hawl adkeyd oo cuslayd qaadan waa ahayd oo maaragta dhib badnayd runtii caawa inay tiim kale ku wareegayso culayska naga fudaanay waan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay in tiim ku haboon khibrad aqoon iyo karti intaba leh loo soo xulay oo aan rajaynaynaa inay meel fiican gaarsiin doonaan ilaahidankii soo dhawaada ilaahay xilka iyo mas'uuliyadda la idin saaray baa Allah idin fududeeyo inta kadib akhyaarta waa la wada sharaxay guddiga kan waxa uu yahay hawlaha uu qabto mas'uuliyadkiisa waa arrin horta waa hay'ad dawladeed hay'ad dawladeedna waxa fuul waxay leedahay mas'uuliyaadkeedana waxa ka dhalanaya inay hesho garba badan guddiga sida qeexidiisa ku aragteen waxa laga rabaa hubinta ruqsadsiinta diiwaangelinta kormeeridda tayeynta iyo dhowrista iyo ilaalinta xushmadda caafimaadka intaas oo mas'uuliyadooda oo taxan mid walba waxay u baahan tahay hawl gaar ah waxay u baahan tahay dad ka shaqeeya waxay u baahan tahay dad ilaaliya waxay u baahan tahay dad garba u ah runtii waxaan dhihi karaa mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka kali ah kuma koobno mas'uuliyadda maaragta iyo cidda garab istaaga laga rabo waxay u baahan tahay qaybaha kala duwan ee dawladda iyo bulshada sidaad ogtihiin guddiga xirfadlayaashu 3 eeriyo bay tahay inay wax ka qabtaan eeriyada koowaad waa xirfadlaha caafimaadka eeriyada labaadna waa xirfadlaha meesha soo saarayso waxa weeye xarumaha tababarka caafimaadka eeriyada saddexaadna waa xarumaha ay ku shaqeynayaan xirfadlayaasha caafimaadka ay ka shaqeynayaan waa 3 meelood oo يعني qaybo kala duwan soo galayaan meel wasaaradda waxbarashada soo galaysa oo looga baahan yahay guddiga tacliinta sare iyo manaahijta in lagala shaqeeyo say ugu ilaaliyaan guddigani arrinta ah muxuu ahaa in xirfadlaha la soo saaraya uu yahay xirfadle ama manhajka lagu soo saaraya manhaj ka tarjumaya siyaasadda wasaaradda caafimaadka dhanka la kale waxaa la rabaa xirfadlaha in la hubiyo in uu
mas-uuliyaadkii iyo manaahigtii iyo wixii loogu talagalay sidii saxda ahayd u soo bartay oo yahay waxaan uu ka shaqaynayo qofkii ku habboonaa intaa waxaa sii dheer in la hubiyo xarunta uu ka shaqaynayaa inay u dhammaystiran tahay adeeguu qofka kan ku badbaadin lahaa oo sidii halkan laga xasiyo xarumaha qaarkood ama dadka ka shaqaynaya magac ahaan bay u jiraanin sida saxda ahayd ma wada dhammaystiran marka shaqada noocaasa 7 qof ama 8 qof ama 10 qof oo la magacaabay shaqa ay qaban karaan maaha shaqa dawladda oo nidaam dhammaystiran u baahan weeye waxaan aad u rajaynayaa marka in ay arrimahaas iyadoo sida loogu dhug leeyahay hay'addan hay'ad dawli ah mas'uuliyaddii dadka bini aadanka deegaanka ku nool mas'uulka ka ahaa weeye waa in la siiyaa muhiimadda ay leedahay oo aan lagu halmaamin magacaabid aan lagu halmaamin in la yiraahdo wax qabta aan lagu halmaamin in la yiraahdo dadka ruqsad siiya ee loo dhameystiro waxyaalaha ay u baahan tahay runtii caqabado dhowr ah baa jira oo aan isleeyahay waxba laga baran karaa muddadii aan soo haynay xilkan midda koowaad waxa weeye muhiimadda ay leedahay waana sababta aan hadda iyadoo lagu celiyo aan dib aan u sharxay oo definitionkeeda u sheegay guddigan waa fahan la'aan bulsho oo bulshada marka aan leeyahay waa bulshada xirfadlayaasha caafimaadka runtii dada kan waa garan ka dhan jiilka shaqaynaya da'dooda laysa weligood ma qaadan shirar badan baan isugu yaraa wacyigelina waqtiga yagii dhibaatada ugu badan wuxuu leeyahay anu shahaadaan baa haysaa maxaan falayaa laysa marka ilaa tusaalooyin badan aan isla gaaray oo marmar aan idhaahdo war darawalka hoose isaga laysan lagama rabo waa aqoonsiga ku shaqayn lahayd soo darawalnimada ma yaqaano wuuba wadaabay oo loo jeedaa inuu wadee dee wuxuu u baahan yahay in markaa fahan adkaan la'aan tiro badan baa jira runtii waxaan isleeyahay guddigana waa hawl u taalla dowladdana waa hawl laga rabo arrintaa tixgelinteeda arrinta labaad waxa weeye caqabadda labaad waa caqabad dhanka hay-addan hay-ad dawliya maadaama ay tahay waxyaalaha mas-uuliyaadkan fuulaya wixii ay dowladda uga baahnayd ama dhaqaale ha ahaato ama taageero ha ahaato ama mas-uul kasta meesha uu joogay in uu hubiyo qofka ka shaqaynaya inuu xirfadihii saxda ahaa yahay oo laysanka haysto baa iyada laftigeeda waxay tahay caqabad kale marka iyadana in laga shaqeeyo caqabadda kale waxa weeye iyada laftigeedu in dhammaystir la'aan guddigaa la magacaabaa guddigan dhexe xeerku wuxuu sheegayaa guddi ilaa heer degmo ah waa in la dhammaystiraa haddaan la dhammaystirin guddiga ilaa heer degmo wax shaqayn karaa ma jiraan waana adkaanaysaa waa caqabad kale waan isleeyahay waxbaa laga baran karaa loona baahan yahay wasiirku sida degdegaayo tan uga howlgalay oo aan aad ugu mahad celinayna sanad iyo barba annaga xilkayga wuxuu dhammaaday muxuu ahaa December 2023 hal sano iyo bar baanu heehaab haynaan lahayn xilkaa laga wareejiyo marka sida dhaqsaha ay uga howlgalay aad baan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inuu dhammaystiro heerarka marka la dhammaystiraa waxaa imaanaysa shaqadu inay isku xiranto oo dhammaystiranto laba qof oo midna garawa joogo oo lagu eryada laysan qaado midna uu joogo daraf kale oo aan weligii la weydiin laga yaabo inay isku guri ka tooseen oo walaala yihiin waxa muranku halkaas ka dhalanaya hebel baa loo weydiiyay maxaa aniga laga rabaa marka iyadana waxaan rajaynayaa in la dhammaystiro heerka caqabadda ugu dambaysa oo aan xusayo waxaa laga yaabaa in aad ula yaabtaan caqabadda ugu tirada badan waa mas'uuliyiinta dowladda waxbaa diiday horta ogaada waxa waa maxkamad qof baa dhahaysaa waxaan waa ku siiyey kuma siin waxaad ku dhahaysaa adiga markaa meesha joogtid mas'uuliyadda lagaa rabo waa inaad si sharciga ku tiraahdaa caqabadda ugu tirada badan marka waxa weeye agaasime wasiir xildhibaan baa waxay kuugu imaanayaan maxaad wiilkayaga waxaa ugu diiday sidii nabadoonnadii oo kale caqabadda ugu tirada badan halkaas ka imaan doontaa waxaan rajaynayaa wasiiradu way imaanayaan halkane in horta digniinta koowaad iyaga la siiyo oo hadday jiri lahayd sida kubadda dadka ciyaaraya redkii baalka loo taagi jiray casaayo kale qofkii wax diida loo taagi kara haddii la siin karo guddiga hala siiyaa dhihi lahaa caqabadda ugu tirada badan ugu adag ugu shidada badan ugu xiiqda badan waa caqabadda mas-uuliyiinta sida nabadoonnadu marka dambiilaha la soo xiro ay dowladda u dhibaan bay tiimarkanina u dhibayaan shaqadaan inay qabsanto waxaan aad u rajaynayaa marka caqabadda in aad looga xaliyo gabagabadii runtii guddiga waxaan hubaa inay yihiin guddi khibrad dhammaystiran leh guddi kala duwan oo xirfado maaragta muxuu ahaa mas-uuliyaad tira badan la soo qabtay inay aad maaragta ay wax badan ugu hagaagi doonaan
waxqabadkii maxaa soo qabateen haddii lana yidhaahdo runtii waxaan dhihi karaa ugu yaraan xafiis walba waxaa la og yahay inuu guddigaani jiro midaa wuxuu diidnay midaa isku buuqnay kuwa aanu xafiiska ugu tagnay oo nidhi laysan qaata ugu yaraan waa lana og yahay marka waxaan isleeyahay waa gosbarka hore in la raaqbalaaba adkaydba cidna ka xaysana maana ahayn marka tan koowaad waxaa weeye inaan xafiisna samayna lana ogaado horta waa waxqabad weyn bay ahayd runtii waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaya wasaaradda maaliyadda waloo ay lacag raadis ahayd laakiin shaqo badan bayna la qaabto system dhammaystiran bay abuuray oo qofka in dukumentiga la register gareeyo ilaa uu shahaadada qaato system dhammaystiran oo aad u shaqaynaya bay aad noogala shaqeeyeen xafiiskay aad noogu qalabeeyeen aad baan ugu mahadcelinaynaa waana uga mahadcelinaynaa waloo markii dambe ay naga aamuseen ID kaaradii baa diyaarsan waxay noo soo daabacaan ID kaaro aan la foojar garayn karin waxay noo soo daabacaan shahaadooyin aan la foojar garayn karin way yaaleen guddigan ku wareejin doonaa insha Allah ilaahay dankiis waan uga mahadcelinaynaa shaqadaas waxaa jiroo kale xirfadlayaal aan aad ugu mahadcelinayno isdiiwaan geliyey cusboonaysiista liistadoodana ay taallo runtii xafladda kadis ugu noqotay tiimka waxaan shahaadooyin sharaf baan ugu soo samayn lahayn laakiin waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso دكتور أبو شعر وإستجا يتيم كيسة خاصة كذا إني قاطعنين جودي وحنا فرشينا يقول وحنا فرشينا يقول دقة إني ما أعرف سامحوها على قرب استاجو وحنا فرشينا يا والي ماش بلا حرب تاع هبل بواسي هبل بعديد أدو وأنت الدورة لكن الحلقة هذه أدو قاد صاحب بدل بعض كمر بدونتان صاحب بدل بعض ما أعرف سامحوها runtii isku gafi doontaan laakiin waxaan aad u rajaynayaa bulshada in lagu badbaadiyo guddigan waa guddi loogu talagalay in uu xirfadlahana ilaaliyo loo adeegahana ilaaliyo marka waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay aad iyo aad maaragtay u hirgasho aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa qof kasta oo nala shaqeeyey qof kasta oo na garab istaagay waqtiga aan shaqaynaynay runtii annagu tiim baanu ahayn meelo kala duwan baan joognay muddo dheer baanu annagu xataa waxaan iska bixinaynaa kharashaadkeena normalka ah markii maaragta dowladdu ay xoogaa ay iska daaya marka waxa weeye waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiimkii nala shaqeeyey aan guddiga ku wada jiray oo har iyo habeen wax kastoo loo baahdo nala qabanayay aad iyo aad loo mahadsantihiin waxaan aad u rajaynayaa wasiirka caafimaadka oo runtii dhiiranaan badan arrintan u muujiyey laba shay baan kaga tegayaa midda koowaad guddiga ilaa heer gobol la gaarsiiyo midda labaad mushaarka ugu horeeya xirfadlayaasha dadka wasaaradda u shaqeeya ama hay-adaha u mareen ama baalka intaan bareefad aadin bayroo lambar bay leeyihiin laysa lambar lagu dararkaan lahayn ayuusan mushaar qaadan